Barasare oo dhiga cilmiga qaanuunka ama sharciga ayaa weydiiyay mid ka mid ah ardaydiisa magaca. Ardaygii ayaa si sax ah ugu jawaabay. Kadib professorkii ayaa fasalkii ka saaray ardaygii sabab la'aan. Ardaygii ayaa isku dayay inuu isdifaaco, balse professorkii ayaa si adag u diiday, kana saaray howlkii muxaadarada ka soo jeedinayay. Ardaygii ayaa soo baxay isagoo dareemaya dulmi iyo cadaalad darro aad u fara badan. Ardaydii kalena waa ay iska aamuseen. Dabadeed ustaadkii muxaadarada ayuu bilaabay oo ardaydii ayuu weydiiyay maxaa loo sameeyay shuruucda. Mid ka mid ah ardaydii ayaa yiri in la xakameeyo habdhaqanka dadka. Arday kale ayaa yiri in la dhaqangeliyo qaanuunka. Ardayga saddexaad ayaa yiri si aanay kuwa xoogga leh u dulmin kuwa jilicsan. Professorkii ayaa yiri haa, laakiin jawaabta weli maydaan dhameystirina. Arday abaa gacanta taagay oo uu ku jawaabay ilaa cadaalad laga helayo. Professorkii ayaa yiri haa, tani waa jawaabta si ay cadaalad u hirgasho. Haddaba maxay tahay faa'iidada cadaaladdu? Ayuu haddana ustaadkii weydiiyay ardayda. Arday ka mid ah ardaydii ayaa ku jawaabay si xuquuqda loo ilaaliyo oo aanan cid kale u dulmin. Ustaadkii ayaa yiri hadda waxaad i siisaan jawaab cabsi la'aan ah. Ma dulmiyay saaxiibkiin markaan fasalka ka eriyay? Markaasay kulligood yiraahdeen haa. Professorkii ayaa yiri isagoo xanaaqsan oo haddaba maxaad u aamusteen oo wax maxaad u samayn weyseen? Maxay qawaaniintu ama shuruucdu faa'iido leeyihiin haddii aanan ku dhiiran karin dhaqangelintooda? Haddii aad ka aamustaan marka uu qof lagu sameeyo dulmi ama xaqdaro, isla markaana aad difaaci weysaan xaqa, waxaad weynaysaan dadnimadiinii, damiirkiinii iyo sharaftiinii. Dadnimada iyo sharafta gorgortan lagama galo. Dabadeed professorkii waxa uu u yeeray ardaygii uu eriyay oo uuna raali geliyay isagoo ku sugan ardayda hortooda, wuxuuna ku soo afmeeray hadalkiisii kani waa cashirkiina maanta, waana in aad xaqiijisaan intaad ku dhex nooshihiin bulshadiina dhexdooda.